السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan soo gaaray madaxweynaha dowladda Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay imaashaha madaxweynaha iyo wafdigiisaba. waxaa kaloo farxad kala ah madaxweynaha wafdigiisa waxaa moodaa inuu soo xulayo dadkii reer Baydhabo oo aad looga jeclaa Baydhabo uu keenay wafdigiisa ay ka mid yihiin. waa farxad labaad. runtii Puntland iyo dadka reer Koonfur Galbeed waxaa ka dhaxeeyo xiriir taariikhi ah oo iskaashi siyaasadeed ah oo walaalnimo ah oo Soomaalinimo ah oo muddo dheer annaga waalidiintaanada naga horreeyay ay lahaayeen. socodkaana wuxuu hormuud ka yahay arrintii in dib loo soo nooleeyo way nooleeyada laga sii shaqeeyo. waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan dadka Soomaaliyeed isaga dhaweyn oon isaga jecleen waxay ahayd arrinta federalismka. annaga 54 yaan odayaashaanadii u istaageen markii ay daaleen ay Soomaali ka tagi lahayd abaal goonihan uga haynaa dadka reer Puntland ayagaa yiri maya oo horey u soo qaaday oo markuu energy-ga soo noqdayna nagu soo simay. marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay mudana madaxweyne adiga iyo wafdigaadaba soo dhawaada Koonfur Galbeed ku soo dhawaada. caasimadda ku meel gaarka ahayd Baydhabo ku soo dhawaada. meel aad iyo aad la inkaga jecel yahay dadka reer Puntland oo abaal tiro badan iyo looga hayo walaalnimo ku soo dhawaada. runtii waxaan la iloobi karin shacabka reer Koonfur Galbeed markii inta dhibaatada iyo duruufaha adag ay ka dhaceen sida quruxda badan oo kalsoonida leh oo loogu soo dhaweeyay deegaanada Puntland oo ay uga mid noqdeen dadkooda oo ay u heleen ganacsi xora ay u heleen waxbarasho iyo caafimaad ayna ka mid noqdeen dadka deegaanadaas degan. qof kasta oo reer Koonfur Galbeed wuu og yahay dadkana dee awalba isdhexgalkaas iyo waxaa ka dhaxeeyay iyo walaalnimadaas iyo wada noolaashada iyo isjacaylka ayaa awalba ka dhaxeeyay. duruufahan adagoo muddadan dambe bilowday oo ummadda kala gooyay markii laga tago haddana hadduu ilaahay yiraaho xiriirkii iyo iskaashigii wanaagga badnaa yaan sii xoojinaynaa. aad iyo aad u mahadsan tahay mudana madaxweyne adiga waftigaadaba ha dhawaaw Baydhabo jannaay ha ka dhawaaw meelasiin ku jeeliyaha ka dhawaada. aad iyo aad u mahadsantiin madaxweynaha Koonfur Galbeed His Excellency Cabdicasiis gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Ambassador Fiqi wasiirada xildhibaanada akhyaarta kale reer Koonfur Galbeed dhamaantiin waa salaamantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii marka ugu horeysa waxaan jeclaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha iyo dowladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed iyo gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah shacabkeeda Baydhabo sida diiran oo runtii kalgacaltooyadii walaalnimada leh maanta nala soo dhaweeyay. farxad gaar ah ayay noo tahay runtii sida uu sheegay Cabdicasiis oo labadan state oo ah laba state oo muddo badan xiriir ka dhaxeeyay wax badan ka soo shaqeeyay nidaamka federalismka dowlad dhiska dib u heshiisiinta dalka iyo sidii ummadda Soomaaliyeed hore ugu socon lahayd. Baydhabo ma ahayn caasimadda ku meel gaarka Koonfur Galbeed marba caasimadda ku meel gaarka Soomaaliya ahayd. marka waa magaalo taariikhi ah oo runtii dadka Soomaaliyeed dad fara badan oo Soomaali oo dhanba ah u ahaan jirta base inaan maanta imaado sharaf weyn bay ii tahay. waxaan rajaynayaa muddada aan joogo haddii Ilaahay idmo inaan si wanaagsan u sheekaysano wax badan isla ogaano. sidoo kale dadkii reer Koonfur Galbeed hadda reer Puntland aan ayagana salaam baan inaga sidnay. runtii dad badan oo mujtamaca Puntland ka mid noqdo sidii waqtiyada ka mid ah
dad fara badan oo puntland ka soo jeeda ay reer koonfur galbeed u ahaan jireen oo bayskood u ahaa ayaa haddana kuwaas si lamida weeye marka soomaalidu dee dhulka ma kala leh degaanadana ma kala leh laakiin qof walba meeshii markaas u arko inay fursad iyo deganaansho ka jirto ayuu maaragtay joogaa marka iyadana waxaan rajeynaynaa nabadda iyo horumarka hadda ka socda iyo dowladnimada runtii sidayba ahaan jirtay markii janaal dhihi jiray kasii fiicanba sida hadda intii yaraydaan joogay iga muuqata horumar la taaban karaa muuqda waxaan rajeynayaa insha allah inaan iskaashigaas iyo dowladdaas guud ahaan ee soomaaliya dhismaheedana dad iska wada kaashada aan noqono fursadda aan hadda ku imid ma aha tii u dambeysay mana noqonaysa tii u horreysay oo keliya waxay noqonaysaa mid soo noqnoqota oo marar badan aan imaano haddii ilaahayda ka dhigo aad baan iniga mahad celinayaa soo dhoweynta mar labaad waxaan rajeynayaa wada hadalladeena iyo hadallada dambe inay noo dambeyn doonaan annaga waa dhownahay dhulkeennii aan joognaa waana ku faraxsannahay runtii waana ka cudur daarinaynaa muddada dheeroo nala sugayay arrintaas xaggeena kama dhicin farsamo xagga diyaaradda ka timid bay ahayd marka waan dareemi karnaa muddada dheer ee la joogay iyadana raaligelin ayaan madaxda iyo madaxweynaha iyo shacabkii iyo dhammaan mas-uuliyiintii kale ee na sugaysay uga cudur daarinaynaa aad baa u mahadsantihiin